مسؤولين كترسن حسبيغا معارضka ee wadani oo maanta si wada jir jaraa'id ugu qabtay xarunta dhexe xisbiga wadani ayaa walaac xoogan ka muujiyay in dib u dhac ku yimaado doorashooyinka Soomaaliland ugana digay golaha guurtida ee Soomaaliland inay wax muddo kordhin u sameeyaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Siraayo anagu wadanahay wadani marna aqbali mayno in hal cisho lagu daro doorashada waqtigeeda haday xukuumaddu intay xilkeedii gudan weydo ay damacdeen abaalmarin waliba loo sameeyo xilgudashalaanteeda oo muddada loogu kordhiyo oo caalamka inaga dhex saarto waligay Allah yeelimayno waxaanu leenahay Salebaan oday weyn baa tahay dalkan cid ka weyn ma jiro dalkan iyo dadkan hoos u eeg kursiga ragga qaarkii aad ugu dareeysay ku fadhiyaan hay'adina uma deeg balan karayna waxaanu leenahay waar caalamka iyo dadkaaga iyo aduguba aad u ballan qaaday madaxweynaha waxaan leenahay rumee qabo oo dakarog ka qaad diiwaangelinta hadii beed ma carqaladahan aad ku hayso horta taa ka qaad xeerka gudida wuxuu ahaa gudoomiye Saleebaanna xeerka carqaladaha laga daayo dadku ha xirun hal qabto diiwaangelinta faa'iido kaliya liis kaliya ka soo bixi maayo $10 milyan ayaa caalamku geliyaan way ugu tala galaan dhalinyarada tahriibaysa oo meesha lagu shaqo geliyo ma aha meeshii maanta la carqaladeyn lahaa inaad u sahasho mooyaane marka waxaan leenahay horaa loo sheegay wadanimo yeelayo hadday 6 bilood gudahood tahay iyo hadday bili ka harsan tahay juun way ku dhici karaysaa waa in lagu qabtaa waxaanu ka xignaa ilaa ma yeelino dimuqraadiyadda Soomaaliyeed nabadda reer Soomaaliya Salebaan gaal waxaan weydiinaynaa su'aasha ah yaa adiga sharci ku siiyay ma maxkamad baad tahay ma sharciga dalka u yaala tahay sharciga dalka u yaala ummadda Soomaaliland oo dhan baa codaysay ma aha inaad adigu intaad go'aan iska gaadho aad tiraahdo waraaqahani ma saxsana oo aad dib ugu celiso sharciga adiga ku siiyay adiga u baahan in maxkamad lagu saaro waxaan maxay hayday oo lagu yiraahdo sababta kugu kaliftay inaad adigoo aan tusin guurtida cid walba oo Soomaaliland ba matalaysa aan tusin oo aan oran war waxa la isku hayaa waxa waa 6 bilood kadib iyo 6 bilood waxa reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland wax kala la isku hayo yaan leedin waali anu mid baan idin sheegay waxa la isku hayaa 6 bilood ka bacdi iyo 6 bilood gudahood 6 bilood ka bacdi waqtigoodii way dhaafan marka war waxa yeeshaan waxa idin wanaagsan oo ina heshaan bal laga yaabaa inaad doorashadii u yeedhaan Salebaan gaal oo wixii hore ku tiraahdaan bedel oo tiraahdaan inoo suura gali mayse baashii u yeed goli guurtido shir khayr caadi ugu yeedho imaka halna saxiibaan annaku waxaanu leenahay Salebaan gaal waa inuu shir khayr caadi u yeedhaa uma baahna golaha wakiilada inuu ku celiyo xeerka wuxuu khalad u arko awoodiisa ha isticmaalo halkay la martaa eego hadii golaha wakiiladu ku celinaya ka aqbalanaya hadii kale waa yeelkadii fulintu haday ka aqbasho way dhici jirtay waxaad yeelaysaa Salebaan oo u yeer golihii guurtida shalay kala dirtay dawo kale ma jirtee hallo arintii hallo codeeyo wixii aad bedelaysana bedel wixii aad bedelayso na bedel maaha markii ugu horeysay ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland walaac xoogan ka muujiyaan inuu dib u dhac ku yimaado doorashooyinka la filayo inay Soomaaliland ka dhacaan bartamaha 2015 Mukhtaar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa.